marka hore dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa cid kasta oo muuqaalkan soo gaadhaba salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa aan si kaliya laabo u salaamayaa dhammaan taageerayaasha aniga i taageera iyo dhammaan taageerayaasha Maama Xadiyo haddii aan u guda galo aniga shakhsiyantayda filimkan Maama Xadiyo wuxuu iiga dhignaa waxaan ku qiyaaso waan idhaahdo maanta waxaasaan ku qiyaasaya ma garan karo waa filimkii iigu qaalisanaa abid ee aniga isoo mara waa filim saameyntiisa dunida daafaheeda laga wada dareemay waa filim maskax iyo caqli iyo muruq iyo maalba la geliyey horta filimka haddaan ka warramo filim lamidii ma soo marin xaqiiqatan intaa fanaanada ahaana dawaad ogeydeen lamana soo koobi karo waxaa filim aad iyo aad iigu taariikh badan waxaa filimka magacaygii bedelay ubax fahm ee maanta la yaqaano Maama Xadiyo waa markii igu horeysay aan wax jilo ka qayb qaato tusaale ahaan filim ama se program noocan oo kala ah horta markii ugu horeysa dad badan baa feedback ka soo celiyay macnaha inaan jilitaanka ku wanaagsanahay aad baa ugu mahadsantihiin guud ahaan intiini feedback ka soo celisay guud macnaha jilitaanka wad ku soo baxaysa ama ku wanaagsan tahay markii ugu horeysay waa la soo dooray waxaana la igu soo dooray in aan qaybtii aan matalayay Snapchat-ka aan macnaha ku wanaagsanahay jilideedana ka soo baxayo waxaan la matalay dad fanaaniina oo hore u soo jilay riwaayado kala duwan waxaan u ahaa filimkani waa filimkii ugu horeeyay markaas aan si wada jir uga wada qayb qaadano waa anigoo Samsam Daahir Khayraa مسلسلka Maama Xadiyo ee la socoteen waxaan ku matalayaa Zainab Amiin Cambar runtii aniga Maama Xadiyo amba مسلسلka aad ka u daawataan intiina badan aad la soo xiriidaan wixii iga dhignaa school yani school markaan leeyahay qof walba markuu wax bilaabo waxbuu ka faa'iidaa aniga waxa ila dhignay tababar aanan hore u soo marin oo waqti xaadir ka marayo aan soranayana waxa tahay qof wax ka bartay qaabka filimaanta loo matalo waxa fursadana siistay astaan cable aniga magacu yahay Maxamuud Muuse Cali kana tirsan aktaradii aan bajlayaashii matalayay مسلسلka Maama Xadiyo مسلسلka Maama Xadiyo waxa ku matalaya Xamse waxaan ahaa oo shakhsi ahaanta ama shakhsiyada aan matalayay shakhsiyad aqoon amba cilmi oo madax maray kulli ruuxantii مسلسلku markuu soo baxay aba bulshada Soomaaliyeed ay daawatay meel kasta joogtaba waxa kulli shakhsiyadii aan ku matalayay iyo shakhsiyada imaka aan ahay Maxamuud Han iyo shakhsiyada ay ku matalayay filimka Maama Xadiyo kulli way kala duwantay laakiin waxaan isku dayay inaan matalo shakhsiyada noocaas ah baa Xamse matalayay مسلسلka Maama Xadiyo meel kastoo maro Maama Xadiyo la yiraa Maama Xadiyo la igu yeeraa waan ku faraxsanahay waayo filim aad u wanaagsan buu ahaa waxaan idin sheegayaa inaan dabeecadaydu ahaan islaantii kulkulayda wax walba maagaysa caruurteeda soo maagtay soo dhibta dabeecadaydu waad garanaysaa waxaan ahay hooyo caruur leh caruurteeda aad u jecel aan maagin dabeecad xumayn fanaaqdii iyo kibirkii iyo hiddeedii iyo Afrikadan iyo riwaayadan waa been Afrika ku noolay Hargeysan kaga noolay sidoo kale anigu saas Snapchat-ka ugu waali oo inta badan de mar walba mobile korku misido waxa layga soo qaaday inaan de markasta Snapchat ku jirta nolosheedu Snapchat tahay nolosheedu iska khiyaali tahay marka asxaab badan baa igu dacaydisa muna Snapchat ida gurta marka waxa la asxaabteeda qaaligana aad baa u mahadsantihiin badanaana anigu kuma dhex jiro saade aan filimka ku matalayay meehi shakhsiyadeedu waa qof iska normal aanahay macnaha iska dadka caadiga ahna anigu laakiin shakhsiyantayda dadku kulli waxay moodayaan nin qalqaaliyo Mustafa waa qalqaali sida filimka ku soo gaadhay waa shakhsiyada aan filimka ku matalayay sida kala marka la eego miskiinka yar ee iska furfuran iska bashaashka iska bulshaawiga laakiin nin mas'uulana ah ayaan ahay waxaan jeclaysanay dadkii waqtiga na galiyay ee commentiyada noo soo qoray inaanu hal iyo laba
iyo intii aanu ka gaarsiin karno qordee wad farabadantii runtii aad baan iga mahad celinaa dadkayga ma soo wada qaban karno laakiin baqtiyaana si intii gacanta taabato inaan 2 iyo 3 ka soo qaato ee aniga de xamaasada goonida ay lahaa amba aadka iga qosliye markaan komitiyada akhristay haddaan komitiga ugu horeeya soo qaato waa Maxamed Saciid qosol buu ku bilaabay wuxuu yiri adigoo sodooda xamanaya korkaaga haday timaado ka xunuydi cid wax ka xuni ma jirate qof dhalo waalidku oo maamulkii guriga ah oo adigoo hadalayo nagta ku haysa ku fadhiistaag subxaanallah baa laakiin iyada man xamanaynin asxaabtayda la sheekaysanayay iyadu maadaama ay qof dictatoriya oo filfila ah dadka garanaysan waad nala socoteen kursiga waxaan dibadda ula soo baxay si ayna dadkayga ayaa asxaabtayda aan la hadlayo inuu walba soo deedeeday way ka ilduwata inta wanaagsan iyo ixtiraam iyo baysiisa kursigaba waxaan guriga dhan la soo baxay waxay ahayd in aan asxaabtayda la yar sheekaysto laakiin waa la igu qabta waana iska dhigay telefoonka aad baan ku salaamayaa Maxamed Saciid fikirkaaga iyo waliba sida quruxda badan ee u daawatay xalqadaha iyaga ugu xidhnayd waxaan rajaynayaa kuwa ka dambeeyay ku xidhnaa doonto aad baan ku salaamay adiga ka ugu horeeya haddii aad soo qabto gabadh la yiraahdo Xamda Cilmi waxa ay tiri weligay film Soomaali ah oo sidan aan ugu qoslay ma jiro film iga dheh waad ku mahadsan tahay comment-kaaga quruxda badan leh annaguba intii aanu duubista wadnay intay aanu idin soo gaarin qosolkani annaga dhexdayada qosolnay firixdaas naga soo dhamaatay aadna waa ku salaameynaa waad ku mahadsan tahay comment-kaaga quruxda badan ee aad noo soo dhiibtay Princess Amina oo comment ka soo bixisay waxay tiri Muuni waa anigoo kale waxay tiri telefoon baa lagu mashquulsanaanaya dabcan dadka dhalinyaradu waa imka waa say u badan tahay qof wala wuxuu iska duubay hadii xaqiiqo yar tago abdi meel kala tago dhag snapchat-keeda Nashaad Ismaaciil waxay tiri wow musalsalkan aad baan uga helay maama Xadiyo siiba maama Xadiyo aad baan ku soo dhaweynaynaa Nashaad nasiib baad u yeelatay markii koowaad baynaan kugu dhufano isha halka sida ay si ka badan u sii wad si aad waa dhiirigelintiinii wax loo xad noo soo qorta waa dhiirigelintiinii qisas dunia waa inan baan filayaa qofka magaca leh comment-iga uu ka bixiyay filimkan xaafadeeda ayaa matalaya ay u jeedaa baan filayaa sidan ayaan iskugu haysan jirnay ramuudka hooyo iyo aabo waan dhibtay wallaahi Queen Safia waxay tiri inda adag sidii hooyadeed waxay tiri aniga laftarkayga waxay ugu qoran wallaahi waxay tiri way dhaaratay waxay ugu qoran bay tiri dhalaal badan sidii hooyadeed hooyooyinka in la amaano wallaahi horta waa hooyada abaalkeeda ma gudi karno marka hooyooyinka Ilaahay inoo daayo dhamaanteedba iyadana waxay tiri hooyo Ilaahay inoo daayo aamin baan leenahay Safia ama Queen Safia thank you hoona waa mahadsantahay waayahay waxa la yiraahdaa inantan Sundus Xarago waxay tiri konton digaagu soo xadaya ganacsi fiican weeyaan way qasashay bil gudaheed konton kii uu soo xaday iyo kontonkii uu soo dabayba wuu qalay maxaan qaban lahayn adeer wax la soo xaday iyo wax la soo dabayba dad baa lahaay haddaanad birta ka aslin maxaa kala jiri lahaa waxaan soo qabtay comment-igii labaad waa Yaxya Cabdulle wuxuu yiri Samsam Sharaf jilniinkeedu waa khatar weey aad baa u mahadsantahay waxaan filayaa inaad dariskaaga yihiin dad sidayda yara ah markaasi way ku taabatay baranaya Yaxyow aad baad mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga siisay iyo sida aad noola socoto teamka amba dhaahdo soo tabiya filimkan aad la daawanaysiin la socoteen maama Xadiyo thank you baan ku leeyahay Yaxye waxaan nasiib u yeeshay marka labaad Nasra Quman waxay tiri waa sida aan doonayo inaan noqdo mar dhow ما شاء الله ويقصشي وافلن عجايبة ما شاء الله وبحفهمه يتيم كذا aad baan ku soo dhaweynaynaa Nasra Quman waxaan leenahay in naga daalin in naga caajisin mar walba comment-kaagu waa lagu baahan yahay
waxay tiri midna buug dhig midna buug qaado ayaa lagu canaananayaa isbeddelka adduunku waa kaas. waxaan filayaa inay inan tahay. waayahay gabadha waxaa la idhaahdaa naciima maandeeq. naciima maandeeq waxay tidhi qorshaha mustafe aad baan ugu qoslay wallaahi. waad ku mahadsan tahay. qorshahayga haddii aad ku qosashay adiga iyo dadka kaleba waxaan leeyahay dee qorshahayga ha iskaga qoslina une taniyo qorshaha ila kiciyo oo ila taageero oo digaagga